Robots Engineering waa qaybtii koowaad waxaa idiin soo diyaariyey anigoo ah injineer cabdiwahaab Somtronics. Cashirkan waxaan kaga hadli doonaa robotka wuxuu yahay, noocyada uu ka kooban yahay, iyo cilmiga engineeringka ee robotka sidee loo bartaa. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iidaysataan. Ereyga robotka la yiraahdo muxuu yahay macnihiisa? Ereyga robotka waxa uu ka yimi wadamada loo yaqaano Islaamiga ay ka mid yihiin Ruushka iyo Ukrainiyiinta. Robotka macnaheedu wuxuu yahay shaqaale, waana erey jiray waqti dheer. Haddaan u macneyno si cilmi ahaan ah, robotka muxuu yahay? Robotka waa walxo ama mashiino la program gareeyo in ay u dhaqdhaqaaqaan jihooyin kala duwan ayagoo madax bannaan, shaqada loo dirana qabto. Waa mashiino inta la program gareeyo aad u dirsato inay shaqo ay kuu qabtaan. Marka robotka micnihiisu waa saas. Robotka meeqa nooc ayuu u kala qaybsamaa? Robotka noocyo badan ayuu leeyahay. Nooca ugu horeeya aan ka hadli doono waa nooca loo yaqaano gacmaha. Noocaas oo leh sidii gacan oo kale leh meel ay wax ku qabtaan, dhinac kastana u dhaqaaqo. Noocaas waxaa ka mid ah noocyada loo isticmaalo warshadaha oo loogu talagalay inay ku qabtaan shaqo u baahan in lagu celceliyo oo bini'aadanku uusan qaban karin. Masalan, shaqada haddii mar kasta lagu celcelinayo, ayaga ayaa loo dirsadaa. Nooca labaad waa nooca afarta lugood leh oo sidii xayawaanka oo kale u samaysan. Noocyadaas waxaa ka mid ah noocaas hadda tusaale ahaan nooc ari oo kale ah, nooc sida eygi oo kale ah, nooc sida mukulaashi oo kale ah, nooc sida caaracaarada oo kale ah, iyo nooc sida quraanshada oo kale ah. Su-aasha marka waxay tahay maxaa loo isticmaalaa? Noocyadan waxyaalo badan ayaa loo isticmaalaa wadamada hore u maray. Masalanba noocan eyga la yiraahdo waxaa loo isticmaalaa in loo diro meelaha qofka bini'aadanka uusan geli karin, sida meelaha nuclearka ay ka jirto dhibaato maaragtay gaarsiin karto bini'aadanka caafimaadkooda. Marka isaga ayaa loo diraa. Waxaa loo diraa dhulalka hoose, musqulaha, meelaha qofka bini'aadanka aysan ku habbooneyn inuu tago. Waxaa kaloo hadda loo isticmaalaa dagaal ayaa xataa lagu galay inta lagu rakibo mashiino ayaa waxaa loo diraa inay dagaalamaan iyadoo la kontaroolayo. Marka waxyaalo badan ayaa loo isticmaalaa, qaar manfacaad leh iyo qaar dhib keeni karo. Nooca kale waa nooca lugaha leh ama taayirada leh. Masalan, tusaale midkaas aa ujeedaa noocaas oo ay samaysay Panasonic waxaa loo isticmaalaa isbitaalada dadka jiran inuu u shaqeeyo oo wax u geeyo daawada iyo waxyaalo saas oo kale ah. Nooca kale waa isagana caanka ah hadda isticmaasho NASA ururka la yiraahdo waxaa loo diray xidiga Mars ayaa loo diray. Meeshaas ayuu wuxuu ka qabtaa cilmi baaris oo dhagaxda noocay ka kooban yihiin, carrada, in bini'aadamku ku nool yihiin Mars, waxyaalahaas ayuu baaraa. Nooca kale waa nooca labada lugood leh oo isagana la isticmaalo oo dadku xataa ay isticmaalaan inay ku tagaan meelaha qaarkood. Booliiska isticmaalo, meelaha dadku aysan mari karin ayaa loo isticmaalaa. Nooca kale waxaa ka mid ah nooca guryaha nadiifiyo kale oo masalan mashiinka hadda aa ujeedaan waxaa loo isticmaalaa guryaha inuu dhulka nadiifiyo isagoo qofna u dirin. Saacaduu leeyahay, meel uu galaya asaa is jaarji garaynaya. Markii uu jaarji garaysmo waqtigiisii uu shaqada qabanayana uu soo kaco, wuxuu sameynaya guriga ayuu ku nadiifinaya. Kaasna faa'iidadaas ayuu leeyahay. Nooca kale oo ay ka mid yihiin noocyada loo isticmaalo dagaalka asna sidaas oo kale, sidaa ujeedaan kaaramaatigaas oo kale waxaa loo isticmaalaa inuu dagaal iyo waxaas uu galo. Waxaa kaloo ka mid ah baabuurta la yiraahdo sida baabuurta keligood iswado oo la yiraahdo Google Cars. Waxaa loo isticmaalaa taksi ahaan, guriga ayuu kugu imaanaya isagoo qofna wadin, way ku qaadayaan meesha harjay ku geynayaan, waxaana wado robot ayaa wado. Nooca afraad waa nooca loo yaqaano droonka. Waxyaalo badan oo faa'iido ayuu leeyahay. Masalan, noocan oo kale waxaa loo isticmaalaa beeraha inay cayayaanka ka ilaaliyaan, inay fertilizers iyo waxyaalahaas oo kale ay ku shubaan. Marka ayagana faa'iidadaas ayay leeyihiin oo waa la isticmaalaa. Nooca kale waxaa ka mid ah nooca isagana oo droonka aho oo dadka duurarka ku joogo ama baadiyaha joogo loogu geeyo daawada. Isagana faa'iidadaas ayuu leeyahay.
nooca kale waxaa ka mid ah nooca maraykanka oo wadamada maraykanka oo kale laga isticmaalo oo la yidhaahdo deliveryga oo actual kuu keenayo wixii aad ka dalbato shirkadaha ama alaab ha noqoto gurigaaga kuu keenayo. nooca u dambeeya waa nooca hadda oo dagaalkii waxaas lagu galo oo loo yaqaano masalan midka caanka ah waa midka ay samayso turkiga oo la yidhahdo baytkar la yidhaahdo oo asagana droonkaas oo loo isticmaalo inuu dagaal iyo waxaas uu ku galo. nooca shanaad oo u dambeeya waa nooc loo isticmaalo badda oo quusayo oo biyaha hoos aadayo oo loo isticmaalo waxyaalo badan inuu masalanba tuubooyinka badda hoos maro oo qaado bensiinka ama gaaska qaado markay ay jabaan ama wax gaaraan ayaa loo diraa markaasuu ciladaas ayuu xiliyaa. haddaan soo qaadano nooca koowaad gacmaha leh ama loo yaqaano manipulatorska waxaa loo isticmaalaa warshadaha baabuurta sameeyo. tusaalahan aan idin tusaayo oo warshad ay iska leedahay mercedes iska leedahay oo sameynayo baabuurtii 2022 tusaale robotka oo gacmaha ama manipulatorska loo yaqaano shaqo gooni ayaa loo diraa inteeda badan waa alxan iyo wax inay isku rakibaan. masalanba tusaale ahaan baabuurka marka uu yimaado waxay sameynayaan waa soo qaadayaan waxay ku rakibayaan ilbaabkii markay dhammeeyaan waa ku alxamayaan sidaa ujeedaan. marka shaqooyinkaas oo kale ayaa loogu talagalo oo soo noqnoqonayso oo u baahan qof inuu markasta uu qabto marka robotka ayaa loo isticmaalaa. nooca labaad oo nooca afarta lugood ama nooca lugaha leh waxaa ka mid ah eegaas oo kale sidaa ujeedaan eegaas isaga ayaa iswado xataa eegaas wuxuu awood u leeyahay inuu jaranjaro uu koro sidaa ujeedaan jaranjaradii ayuu koray markuu meesha kore uu tagana isaga ayaa kasoo degaya sidaa ujeedaan. marka hoos ayaan kusoo dejinayaa videoho complete ah marka robotkaas oo kale waa robot asagana caan ah. robotyada qaar waxaa jiro laba lugood leh oo sida bini aadanka oo kale ah kuwaasna waxaa loo yaqaanaa humanoid robots. kuwaas waxay leeyihiin sida bini aadankii gacmihii lugihii indhihii dhegihii wixii oo dhan ayay leeyihiin marka shaqooyin qaar ah oo bini aadanka uu qaban karo ayaa loo dirsadaa. tusaale ahaan robotkaas ay samaysay boston dynamics waxyaalo badan ayuu ay ka mid tahay gymnastico inuu sameeyo ama meel inuu ka boodo. su-aasha aad weydiin karto ama adiga isweydiin karto waxay tahay injineernimada robotska sidee lagu bartaa. inta aan su-aashaas aanan ka jawaabin fadlan waxaa fiirsataa casharkii hore oo aan kaga hadlay injineernimada korontada ama electrical engineering casharkaasoo muhiim u ah injineernimada badi intooda badan koorsooyinka lagu qaato. inta badan injineernimada electricalka markuu qofka uu qaato koorsooyinka muhiimka ah wuxuu kusii takhasusi karaa waxyaalo badan taasna waxaan kaga hadlay casharkaas. qaybtan waxaan kaga hadli doonaa robotka koorsooyinka aad u baahan tahay inaad ku takhasusto si aad u noqoto robot engineering. jaamacado badan ayaa jira oo wadamada hore u maray ay dadka baraan robotska iyo siday u shaqeeyaan. wadamada ugu fiican waa maraykanka iyo yurubiyaanka australia wadamadaas oo kale. wadamo waa jiraan india iyo meelahaas oo kale ah arontink inay la mid yihiin wadamada maraykanka ama wadamada yurub oo kale australia oo kale inay cilmiga ay kala mid yihiin. marka waxaan isticmaalayaa jaamacad la yiraahdo asu arizona state university qaybteeda robotska. laba shahaado ayay baxshaan shahaadada oo 4 sano ah oo loo yaqaano bse bachelor of science engineering oo qofka uu ku takhasusayo waxa la yiraahdo robotics iyo mid ah master of science oo asagana ku takhasusayo roboticska iyo autonomous system wax la yiraahdo. autonomous systemka waa sistemada ayaga ama waxa iswado waxaa ka mid ah baabuurta oo kale soo geli karto robotska soo geli karo waa shayada gps-ka isticmaalo oo markii meel loo diro aadi karo. qaybta ugu horeysa aad u baahan tahay inaad si fiican u fahamto ama aad koorsooyin ka qaadato waxay tahay waxa la yiraahdo mechatronics waxayna ka taagan tahay mechanical iyo electronics. waxaad u baahan tahay inaad qaadato 4 koorso inaad qaadato ay ka mid yihiin mechanicalka maadooyinka ku saabsan mechaanikada maadooyinka
ku saabsan engineeringka ay ka mid yihiin sida hore usoo sheegay qaybihii hore aan kaga hadlay oo engineeringka ah koorsooyinkaasoo dhan ayaad u baahan tahay. waxaa kaloo u baahan tahay inaad qaadato koorsooyin ku saabsan sensorska sida gyroha accelerometerka, waxaa loo yaqaano lidarka ama radarka, sida cameradoo kale waxaa loo yaqaano proximity sensorska iyo global position ama GPS iyo wixii la mid ah. koorsooyinkaas ayaad u baahan tahay inaad qaadato. waxaa kaloo u baahan tahay inaad si fiican aad u fahamto waxaa loo yaqaano control systemka oo ay ka mid yihiin open loop, close loop, feedback control system iyo logic control oo ah koorsooyin lagu qaato control systemka. maadaama systemka aad dhisi doonto ama aad ku takhasusi doonto uu yahay system u baahan inuu iskontrolo ama la kontrolo, marka taas ayaa u baahan tahay. koorsooyinka laga qaato jaamacaddaas waxaa ka mid ah EGR 343 oo ayadana ka hadlayso mechanics of solid materials. taasna waxaad ku baranaysaa performanceska ama sida ay biraha u kakan yihiin markii ay dhaawac gaaraan, siday u deformation ugu samaysmaan, sida culays u qaadi karaan, waxyaalahaas oo kale ka mid ah, iyo sida waxaa la yidhahdo artificial solid structureska, waxyaalaha artificialska sida ay u samaysan yihiin. waxaa kaloo ku qaadan doontaa physics oo high level ah oo 321 ah oo asagana aad ku qaadan doonto koorsooyin ay ka mid yihiin vector based formulation of Newtonian waa ninkii physicista ahaa oo waxaa qaybtaas waxaa kaga hadlaysa waxay ku qaadan doontaa mechanics ay ka mid yihiin rigid bodieska, ay ka mid yihiin waxyaalaha oscillationka sameeya systemadaas oo kale ayaa ku qaadanaysaa. isagana waa important, waa physics oo waxaa waaye high level ah oo aanan lagu qaadan labada sano hore oo physicska ah. waxaa kaloo u baahan tahay inaad qaadato koorsooyin robotiska ay ka mid yihiin kinematics wax la yirahdo. kinematics waxa kale maaha waa transformationka, misala markaa gacanta robotka aad design garaynayso movementiga ee dhaqdhaqaaqayso. taasna waxaa lagu qaataa xisaabo tiro badan ee ay ka mid yihiin waxa la yidhaahdo rotational matrices, kuwaas oo loogu talagalay waxyaalaha sida 3D-ga oo kale ama XYZ-ga leh, sida aad u move garan lahayd ama aad u bedeli lahayd rotationkooda. waxaad ku qaadanaysaa koorso robotic system 1 ah oo la yidhaahdo EGR 45, taas oo ku barayso designka robot systemka. focusingkan wuxuu noqonaya kinematics dhaqdhaqaaqa iyo transformationka oo coordinated systemkaas oo kale. waxaa kaloo ku qaadanaysaa EGR 455, isna waa wuxuu ku xigaa courskaas ayuu ku xigaa, sidoo kale asagana waa cilmigii lasii kordhiyey. tan u dambeysa oo qaadanaysa oo robot kinematics ka mid ah waxay tahay GR 455, kaas oo aad ku baranayso transformska iyo system modelingska ay ka mid yihiin electromechanical systemka sida ay u dhaqdhaqaaqaan ama u shaqeeyaan. waxaa kaloo u baahan tahay inaad qaadato programmo languages inaad qaadato oo qaarkood aad kusoo qaadan doonto 2 sano ama 3 sano ugu horeyso markaa aadayso engineeringka electricalka aad aadayso. laakiin qofka hadduu rabo inuu sii kordhisado wuxuu qaadan karaa koorsooyinkaas ay ka mid yihiin C++ qasab waa qaadanaysaa, oo waxaa kaloo qaadanaysaa wax la yiraahdo embedded systemka oo ku saabsan microcontrollerka. waxaa ku qaadan doontaa STM microcontroller la yiraahdo ama Arduino ama Intel wax ay sameeyaan. waxaa kaloo u baahan tahay inaad qaadato adiga ama adiga iska isu barto wax la yiraahdo robot operating system oo asagana ah robotka systemka control oo kale oo asagana ku qoran programka la yiraahdo Python. waxaa kaloo u baahan tahay MATLAB oo asagana loo isticmaalo modelingka system simulationka waxyaalahaas oo kale, iyo Java iyo waxyaala lamid ah. marka programmingka waxay tahay waa halbowlihii robotka sida uu u shaqeeyo, marka waa inaa asagana aad si fiican aad u fahmi kartaa. tan afraad waxay tahay wax la yiraahdo control systemka oo hadda aan kasoo hadlay oo ay ka mid yihiin feedback systemka, close loop, open loop, waxyaalahaas oo kale asagana koorsooyin aad ku qaadanaysaa. haddii aad rabto xataa naftaada ifska ayaad u akhrisan kartaa oo waxaa ka mid ah buugaag fiican oo ay qoreen dad maaragtay robotka ku takhasusay uu ka mid yahay buuggaas oo kale. marka ayadana waxaa u baahan tahay inaad qaadato control systemka. tan u dambeysa aad u baahan tahay waxay tahay waxa la yiraahdo computer vision, kaas oo ku takhasusay ama aad ku baran doonto sida u kala garan lahayd waxyaalaha, misalba qof bini aadana, baabuurka, waxyaalaha objectska ah sidii aad ku kala garan lahayd. waxaa la isticmaalaa camero ayaa la isticmaalaa oo cameradaas oo picturekaas ama imagekaas aad ku qabanayso markaas aad si aad adiga aad imagekaas aad u fahamto waxay tahay, hadduu yahay koob, hadduu yahay dhalo, hadduu yahay qof
aad ku kala garanayso. waxaa kaloo isticmaalaysa waxa la yihahda lidar radar oo asagana kuu sheegayo objectska kuu dhow ay waxay yihiin. iyo waxaa kaloo ka mid ah waxaa la yihahdo proximity sensors oo asagana kuu sheegaya markaad derbi ama meel aad u dhowdahay. computer visionka si aan tusaale fiican idiin sameeyo waxaan qoray program ku shaqaynayo python. waxaa la isticmaali karaa c iyo programo kaloo kale laakiin kan hadda waxaan ku qoray python. waxaan isticmaalaya library ay soo saartay google. qaybta hore waxaan ku qoray program la yiraahdo face detection. sida ujeedaan masawirka kor ku yaala halkaas wuxuu dabagelayaa wejigayga meesha hadba aan u dhaqaajiyo. kaasna waxaa la yidhaahdaa face detection ama face tracking. wuxuu dabagelayaa wejigayga. kan hoose wuxuu sameynaya waxa la yidhaahdo hand tracking. sida ujeedaan gacantayda meel kastoo aan aado waa uu dabagelayo oo wuxuu saarayaa box. waxaa taa kaloo kuu sheegaya gacantayda sida ay u samaysan tahay. waxa uu kaloo hataa ku tusayaa meelaha gacantayda ama calaacashayda ay ka leedahay laymanka iyo dhibcaha sidaa ujeedaan. waxa uu kaloo kuu sheegaya gacantayda midig inay tahay inay bidix tahay. hadda wuxuu ku leeyahay waa midig, waa right. gacantayda bidixda haddaan soo qaatana sidoo kale waa u dabagelayaa. waxa uu kuu sheegayaa gacantayda siday u samaysan tahay, farahayga waxyaalahaas oo dhan. isagana waxa uu kaloo kuu sheegay gacantayda inay tahay bidixdii. kaasna wuxuu ahaa tusaalaha idinku tusay computer visionka sida uu u shaqeeyo. marka qayb weyn ayay ka qaadataa robotka sida uu u shaqeeyo. qaybta labaad waxaan dhisi doonaa robot keligiis istaago oo loo yaqaano self balancing. robotkaas waxa uu leeyahay motor laba motor iyo laba lugood. waxa uu leeyahay sensors ay ka mid yihiin proximity detector la yiraahdo ama sensor kaasoo u sheegayo markuu derbi ama wax u dhow yahay. waxa uu leeyahay gyro, wuxuu leeyahay computer ayuu leeyahay. haddii aan ka hadalno sida u dhisan yahay ama block diagramkiisa aan ka hadalno, robot kasta waxa uu leeyahay computer maskax uu ku shaqeeyo. maskaxdaas oo controleyso aalad kasta oo robotkaas ku xiran. haddaan kasoo qaadano accelerometer iyo gyro, haddaan kasoo qaadano bateriga, haddaan kasoo qaadano bluetooth communicationka oo kula yeelanayo bluetooth, iyo ultrasonic aan ka hadalno oo ah proximity sensorski. marka important waaye robot kasta in program lagu qoro si uu u controlo sida robotkaas uu u shaqeynayo. marka insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysataan qaybta labaad.